بسم الله الرحمن الرحيم chapter 4 ayaan ku dhex jirnay waxaan daraad ka soo hadalnay waxyaabo yar oo basic ah oo ka koobna like overall chapter 4ka wuxuu ka hadlaa si ka muuqataba describing data xogta in la qeexi karo يعني مصدر wuxuu saaraa wuxuu ka hadlayaa locationka xogta ay taalo iyo graph oo qaas ah sida sheegay dot plotka box plotka iyo box plotka iska diagramkiisa and so on anyway marka waxaan dadka soo hadalay laba shay oo muhiim ah mid waxa kuma cadanay xogta inaan soo raadino waxa uu naqaanay gool ku ruuxa inaan sharaxno dot plotka waa markaan haysano one variable hal shay kaliya age of students ama income of students whatever wixii lagu siin doono dotku mooji marka waa kind of frequency waa tirooyinka qaado line xariiqo kadibna ala point ala number wuxuu soo qor مثلا number 2 1 2 مثلا number 2 ay wuxuu soo qabtay waxa soo kale 2 2 2 2 3 4 3 3 kama ka sameeyay line kaas waa 2 ka sameeyay xariiqa 1 2 3 4 1 2 3 4 bas and so on waxaan kaloo ka hadalnay the same point waxaan ka hadalnay anoo qal istiimaal leaf taqadaneen isha karo soo daawo waxaan ka hadlay sida loo sharaxo steamka oo first digit iyo leafka oo noqon doona second digit within markaas ka 2 kale 2 daas waa steam way 8 no leaf way and so on marka soo hadalnay qofkii baa fadlan video ka kulaabo ka soo bogo soo faasan waxaa maanta inoo haray inaan ka hadalno qaybtaan loo yaqaano locationskii oo ahaa inaan barno si loo soo calculate gareeyo quartile-kii decile-kii percentile-kii kan waxaa laga wadaa haddii lagu siiyo tirooyin badan oo kala nooc ah inaan istaagi karo locationka markaan istaagi doono position waay positionkaas markii xogtaadii markii la arrange gareeyo xogta markii la hagaajiyo oo saa loo taxo xogtaasi from the lowest to the highest ka sameeyo waxa u baahan tahay inaa istaago positionka istaagi doono waxa ugu hooseeya ko medium maxay tahay xogtaasi kala bar xogta kala barno positionkaas aan kala barayno waxa uu noqonaa medium okay marka qaar waxaan ku dhihi karaa xogtaada afar qaybood u qaybin afar kilo waxaan noqonaa this sort quartile quartile-ka wuxuu ka imaaday afar quartile una dua tre quattro haddii xogtaasi loo qaybin afar qayb loo qaybinayo waxuu noqonaa quartile-kaas markaan ka shaqeyna maxay wuxuu lahaan doonaa first quartile second quartile third quartile hadda maxaan qaybinay medium waa maxay mid markaas kala baro xogtaan kala barnay waa medium xagee istaagnay daabada ka istaagnay kaas waxaa noqonaa maxay location marka rab inaan soo saaro quartile-ka aan xaggaas u qeybay aan dhaafay xaggaas waa Q1 kana waa Q2 kana waa Q3 kan waa location-ka Q1 location Q2 Q3 waxaan qeybanay afar qayb oo qeybanay discuss idea laakiin medium meesha mu qorno laakiin iska faham medium-ka kala bar waay la quartile-kaas waa afar qaybood qayb waay waxaan ka marka quartile 1 quartile 2 quartile 3 marka waxa inoo muuqda marka xagga waxa inoo muuqda inay isla ekaan doonaan second quartile iyo medium xaggaas kale second quartile yaas kale medium waa same marka haddii lagu diro second quartile haddaan haysto medium-kayga waa same taas ka waxaan ku soo haray decile-ka wuxuu ka imaaday xogtaas in loo qaybiyo 10 qaybood because decile-ka d waa dieshwa waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dieshwa xogtii lagu siin doono 10 qaybood qayb hiblaa ka istaaga marka after 10 sector-ka lixaad ka istaag sideedaad ka istaag shanaad ka istaag waxaan rabnaa ko in loo qaybiyo 10 qaybood decile kana waa percentile xogtaad 100 qaybood oo qaybi kadibna waxaa ka istaagtaa boqolleyda shanaad boqolleyda lixaad toddobaad sideedaad waxaan filayaa la fahmay conceptka guud ee laga wado quartile-ka decile-ka percentile-ka iyo medium-ka
medium xogtaan uu siin doono kala bar quartile kan xogtaasi afar qaybood u qaybi quartile 1 2 3 4 مثلا في report am xog ama expense baxay 1 year waxaan qaybi karnaa afar quartile qiyaas kale January February March first quartile waa April May June second quartile waa July August macna 12 months waxaan qaybinay afar quartile simple way okay inta markaa maraynu ku harabna marka sidee loo soo xisaabiyaa quartile-ka Q1 Q2 Q3 iyo digitalka D1 D2 D3 iyo boqolkiiba marka hal qaacid iskaliya qaadano kadibna just a compare okay intaas waxaa loo isticmaali doonaa formula ka imaan doonto this one percentages boqolkiiba waxaa loo isticmaalaa formula kan daa fahamtid waa location-ka percentile-ka waxay n plus 1 p divide boqol. This is the formula of location mark. This is the formula of location. Yes. Okay. Marka there's a question marka. Markii laga hadlayo boqoleyda كم هنقعد هنا first quartile. Okay. أو شرحه simple أو شرحه خاب وسهل فهم قال فتنا فير أنا أنا سمي comparison من حي boqoleyda iyo this one. Fair. Let me compare. كسر قات بقول حبو. Okay. 1 2 3 4 5 إلا بقول كي نمبر أفرق بقى مركب أفرق دلوقتي قيابه مع إيمان دونه هنا قطعي 25 50 75 بقول سما مركي بقول حبه أفرق يوضو قيابه أفرق واتلو قيابه إلا 25 وQ1 إلا 50 وQ2 إلا 75 وQ3 يس maxaa qaybani afar ruuc koowaad ruuc labaad saddexaad afraad marka boqolkii waxaan qaybanay afar baart oo qaybanay koowaad oo ka qaaday ilaa 20 xabo waxay gashay first quarter gashay maxaa ku darnay 20 kale waxay noqotay 50 waxay noqotay second quarter kan waa Q1 kan waa Q2 kan waa Q3 markii boqol xabo loo qaybiyo afar qayb marka waxaan fiirnay markii la isku compare garay boqoleyda iyo quartile-ka waxaa كان دونتو second first quartile وعلى كان دونا B25 second quartile وعلى كان دونا B50 third quartile وعلى كان دونا B75 حرف كلا في بقول كي ترى مركي لو في first quartile وهي فرصة بوسكا لواتري شنات second quartile بوسكا كونتومات because quartile 2 سانكويشي نيبا وميديوم وكالبروا مركز second quartile كاس و 50% واي first quartile 25 واي third quartile هاي 75 واي and so on okay مركز حدين لو درو مثلا اوكي مركز اللي احنا مثلا تملي ديجيتال كان له بقول كي حبوا في كم حاول قيمه بقول كم حاول قيمه كوارتال 4 كوارتال احنا قلت 25 50 75 markaan ka dhigaa digitaalka maxay noqotay 10 first 10 first okay في بقول حبة 10 وقيمة قوة أو 10 first 10 digital قوة sec 20 كله D2 D3 D1 و 10 D2 و 20 D3 و 30 D4 و 40 D5 و 50 مركب digital كشرات iyo percentile-ka kontomaad iyo Q2 iyo medium waa same aan ku celiyo boqol xabo standard roo boqolkii marka u qaybano 4 qaybano afar quartile waxay noqotay quartile 1 waa 25 quartile 2 waa 50 quartile 3 waa 75 waa boqolkii waxa ku la gareynay quartile waa 25 50 75 okay haddii boqolkii xabo aan ku bilaabo مثلا digital 10 hawa boqol xabo boqolkii number 10 qayb waa
10 10 1 first 10 10 ku horeeya waa d soo qorna d1 waa first 10 waa 10 d2 waa 20 because 10 to 20 dhistaag saddexaad waa 30 ku aadan marka taxna waa tirooyinka isku aadan 10 ku horeyso waa d1 10 ku darso 20ka d2 waa booskodan 30gana d3 waa 40gana ilaa iyo maxay wuxuu tagi doonaa d9 d9 wuxuu ka bilowdaa 90 yes waxaa ka mid garanay decilka quartileka iyo media marka okay marka haddii aan kuu diro suppose tusaale ahaan aan soo kowo tusaale ahaan مثلا waxaan kuu diray مثلا waxaa rabaa inaan soo saaro d inaan soo saaro decilka 25 decilka 25 okay markii loo qaybiyo boqol markii loo qaybiyo 25 horta ma jira sorry ma jira مثلا d1 ilaa xagee waa xariga aan kombe garay markii laga hadlaayo horta quartile markii laga hadlaayo waa from q1 ilaa iyo q3 markay tahay decilka d waa from d1 ilaa d9 markay tahay percentileka waa from b1 ilaa b99 yes okay xagga markaa marayno waxaan ognaa marka dhaxbarta ka taagan kan waxaa u dhexeeya q2 kala bar waa kan waxaa u dhexeeya d5 kala bar waa kan waxaa u dhexeeya b50 kala bar waa maxaa kaloo ku xigo medium kala bar waa marka q2 wuxuu leekaan doonaa medium wuxuu leekaan doonaa d5 wuxuu leekaan doonaa b50 intuu seema kullu waxay sheegaan dhaxbarta marka kala barka sheegaan marka ontood waa q2 second quartile iyo medium iyo d5 iyo p100 sorry p50 kullu waxay sheegaan waa locationka yaalo dhaxbarta marka okay haddii marka aan kuu diro d5 markii d5 loo fiiriyo boqolyo marka anoo isticmaali doono qaanuunkan loo yaqaan formkan loo yaqaan locationka boqolleyda ku beegan n plus 1 iyo b over 100 maxaa u baahanay d5 d5 markii loo fiiriyo boqolley markay ku aadan waxaa ku aadan b50 kana fiir meeqaysan waxaa haysanaa dhisitaal xabaa 10 xabo qiimo marka shalista kala bar waa marka d5 waxaa leekaaday b50 oo maxay markaas locationka ay ku taal maxay 50ga equal to maxay inta xabo tirooyinka meeqa baa haystaa 100 xabo 100 number haysta 100 number haystay numberii taxnaa 100 xabo aan haystay n 100 waay wana ku diri doonaa kadibna waxaa rabnaa conton over 100 then waxaa soo baxay locationka 50 oo u dhiganta d5 waxay noqotay 101 times 0.50 wixii soo bixi doono maybe waxaa soo baxay 51 wuxuu noqday xaraf 51aad ayuu noqon doonaa waxaa loo yaqaano maxay d5 kaada oo maxay boqolkii number dhisitaal 10 qaybood qaybe xagee istaagay kan shanaad kala barkii waa waxaa ku beegnaaday waa percentileka 51aad waa marka kadib maxay numberka boqolkii xabad taxnaa kan 51aad ayuu noqon doonaa d5 kaada okay waxaan مثلا find q3 maybe haddii q3 lagu diro yaa ku beegna q3 q1 wuxuu ahaa 25 da xasuustaan q1 wuxuu ahaa 25 q2 wuxuu ahaa 50 q3 wuxuu ahaa 75 haddii q3 lagu diro waxaa leeyahay q3 wuxuu leekaan doonaa locationka 75 boqolkiiba 75 yes because very boqolkii from monka bilow ilaa boqolkii number maxaan u qaybanay 4 qaybood koob waxay noqotay 25 maxaan ku daraynaa 25 maxay noqotay 50 xagee joognaa q2 maxaan ku daraynaa 25
maxay noqotay 75 75 waxay noqotay 75 boqolkiiba ayaa ku aadan maxay q3 marka waxaa 75 n meeqa haysta boqol xabo waxaan ku daraynaa 1 kii qaacida waay kadibna waa 75 over 100 maxay noqotay boqol iyo kow waxaa ku dhacayo 0.75 waxa soo bixi doona maxay ayuu noqon doonaa q3 marka waxaan rabnaa inaan fahmno sida isugu bedel maxay dhistaalka kwartaalka iyo برسنتالك يا بيزكا قاعدة ها بيزكا قاعدة لوكيشن كمحي بقول لي أو بعضه ان بلاس 1 إيو بقول لي دي ديفايد بقول كان كما ساموا محاوبة أنت كيو 2 وهي مسكن 50 51 ان تريد قال محاوبة أنت كيو 1 و 25 25 ان تريد قدو سيوا محاوبة أنت كيو 3 75 75 ان تريد قدو maxaa u baahan tahay d1 d1 waa 10 10 maxaa u baahan tahay d2 waa 20 20 maxaa u baahan tahay d3 waa 30 30 d4 40 40 yes maxaa u baahan tahay medium waa maxay kaas kala bar waay maxaa kala bara 50 waay waxaa filaya in la fahmay sida isugu bedel maxay percentaalka decitaalka kwartaalka kulli maxay sheegaan location yes okay fine haddaan u gudbo qaybta kale ku xigta waxa uu naqaanaa box plot kan wuxuu ka koobmaa 5 qaybood oo meesha soo baranay boxkaas markaas sawir waxa baanta koow ina ogaato minimum kaagi iyo maximum ya ugu yara 8 ugu yar ya ugu badnaa 25 lacala يا رب بدنا 25 يا رب بدنا 25 وهم كان ميني وهم كان ماكسيمم يس لباس شيء انا هاستو مستوى يا اوير مثلا ايجو داوى يا وداير ستيدير يا وداوى 25 كديبنا اسكو هر مع سمير ربا box plots la soco maxaa sameyn rabaa box plots maxaa haystaa qofku daaweynaa maxaa haystaa kii u daadeeraa okay marka boxkaas sameyn rabo saddex shay ee baahda marka q1 oo ah boxka bilowgiisa iyo q3 box dhamaadkiisa iyo q2 afartanka ah saas sameyso is box kan waxaa iskale q1 kan waxaa iskale q2 3 so q3 akan iskale Q2. Yes. That's box plots. Very simple way. maxaa u baahan tahay waxaa u baahannahay inaan soo saaro 5 shay waxaa u baahatay minimumkaaga waxaa u baahatay maximumkaaga waxaa u baahatay Q1kaaga waxaa u baahatay Q3kaaga waxaa u baahatay Q2kaaga intaba hadda maxaa soo baranay sidii loo ka fiir kama waxaan ku baranay sidii loo xisaabiyo Q1 Q2 Q3 Q1 qoro Q3 qoro Q2 qoro kadibna tiriiq lagu siin doono yaa ugu weyn yaa ugu yar kadibna minigi max isku xiro kadibna qiimaha Q1 maybe kan waxa laga inuu noqdo 10 maybe kanna waxa laga inuu noqdo maybe 12 maybe kanna waa 19 alaga waa logic waa كم حنا نقضي 8 كم حنا نقضي 10 كم حنا نقضي 12 كم حنا نقضي 18 19 sorry كنا 25 this was box plot واي معول عندنا لبقى صوت أو عرفيه واي maximum كاجي minimum كاجي Q3 كاجي Q2 كاجي Q1 كاجي by the way كانوا حامين عندنا medium كاجي والميتس عنك بحنا بحنا يقام هاي سنوصل معه لا ترجمه احنا قام هاي بوكس بلوتس